madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq nabadeed waxa uu u diray beelaha dirirtu ku dhex martay tuulada Lafoweyn oo ka tirsan deegaanka Xudun ee gobolka Sool. Kusimaha madaxweynaha Axmed Karaash ayaa si adag ugu baaqay in beelaha ku dagaalamaya deegaankaasi ay si shuruud la'aan ah ku joojiyaan dagaalka. Waxa uu madaxweyne ku-xigeenka sheegay in dagaal wiil aanu ku dhalan ee wiil uu ku dhinto, hanti ku burburta, xigto iyo xigaalna kala fogeysa, adduun iyo aakhirana aan waxba la isku aayin. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa isimada maamulka Puntland ugu mahadceliyay dadaalka joogtada ah ee ay ka geysteen nabadeynta gobolka Sool. Waxa uu ku booriyay in ay qayb lixaad ah ka qaataan dejinta colaadda kasoo cusboonaatay deegaanka Lafoweyn ee hoos tagta degmada Xudun ee gobolka Sool. Deegaanka Lafoweyn ee degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku dagaalamayay beelo walaalo ah oo halkaasi dirir ay ku dhex mareysay, iyadoona dagaalkaas uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.